siisaan noona meherisaan insha allah bismillaahi kariim aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noo qaadasheen iyo sida aad noo soo dhaweyseen salaam aad baan u salaamayaa kulankan aad ugu qiimaha badan leh inantaan fuusiye cabdillaahi xamdile horta marka hore waan dhisay sidii dhaqanku ahaa maadaama si qurux badan noogu soo doorteen oo si fiican noo qaabisheen annaguna waa idin siinay waalideedii baa fadhiya waana idiin meherinaynaa intaana waa idinku dhammaynaya waa idiga guddoonaa annaguna siduu dhaqanku ahaa waxay idigu wareejinayaa wixii meher iyo gabba ahaana insha allah waa idigu wareejiyey arintan dhammaanteena markhaatiyaal ayaan ka wada nahay laakiin waxaa si qaasa markhaatiyaasha hadda aan ugu qornay $7,000 oo doolarka Mareykanka waxaa markhaati ka ah arintaas Maxamed Ibraahim iyo Maxamuud Cumar marka insha Allah kelimadaha iga dabadhaha wakiilka waa kan waa Cabdi Xasan Xandulle gacan qaad isagana insha Allah wuu ku gudoomayaa qofkii wax bixinayay waa adiga qofkii aqbalayna waa intaas marka siiqada waa iijaab iyo qabuul hadii intaas ay dhamaato ilaahay subhanahu wa ta'ala arinteena si taama ayuu noogu dhameeyay insha Allah gacan qaad caruuska Maxamed aadan Cismaan waxa hadlaayo waliga wakiilka Cabdi Xasan waxa dhahdaa waxaan ku guuriyay waxaan ku guuriyay Fawsiye Cabdullaahi Xandulle oo guurinteedu uu ii wakiishtay waligeeda Cabdullaahi Xandulle waxaan kugu guuriyay meher qadarkiisu uu dhan yahay $7,000 oo doolarka Mareykanka ma aqbashay waan aqbal wallahu ala ma naqulu wakiil barakallahu lakuma wa baraka alaykum wa jama'a baynakuma fi khayr ilaahi subhanahu wa ta'ala halkaas walaalkeena u barakeeya Allah ybarak يرى نهر تمرك إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله دعاء halkaas noogu dhamaaday wixii tala ah iyo ducada insha Allah haddaan dhameystirayna ducada dadka waa weyn joog insha Allah adeera noo dhameystiray dhaqanka saas waa insha Allah adeera noo dhameystiray adeera noo ducay insha Allah بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشية ما تحول بيننا وبين معصيته ومن طاعة ما تولق به جنة ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأصبعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله وأنت واحد يالت لبا هو ينواد يالت فكر لكن عبد قريه هو يقرأ الله مسؤوليتي هرا كوين oo kifush xidid xigaal bood yeelad waxa la rabaa inta soo dhan inaad qaado mas'uuliyadeeda in taanu ku siinay aad naga maaragtay mas'uuliyadeeda nagala wareegto aan naga ka soo caban sida dhaqanku ahaan jirayna aad marto aad iyo aad waan ku ducaynay Ilaahay ku banaaneeyo Bismillahir Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo ah Maxamed Ibraahim oo tumacste waxaan maanta halkan ugu hambalyeeynaya عروسك يا عروسده محمد آدم عثمان يا فوزي عبد الله حمد الله
waxaan leeyahay reerkii lagu baaraaro barshushe barwaaqa ilaahay ha idinka dhigo waxaan ugu ducaynayaa ducadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa majamaca baynakuma bilkhayr inuu aroos barakaysan oo nimcaysan yahay waxaa maanta idin muuqata 100 nin oo dhallinyaradii jarmalka ah oo aanaan 7 sannood qaarkood sarag oo aan kamara duumka sidaa u qaban karin ilaa halkaa fadhiya ayaa maanta guurkan ku kulmay ilaahay guurkiigu khayr qaba ee lagu nasto ee lagu nagaado aniguna sidaasoo kale weeye maxamed aadan cismaan iyo foosiye cabdilaahi xamdille ilaahay ha ka dhiga qoyskii isku badhaadha ee isku barwaaqaysta ubad khayr qaba kala hela waan idiin ducaynaynaa baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynama aw bilkhayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه aqoonta waxaan doonayaa ducadii waxa soo dhameeyay culimadii igu horeysay waxaan aqoonta aan u leeyahay maxamed umaan doonayaa inaan in yar maxamed xasan aan ku yar celiyo kolley jarmalka muddo badan baanu hadda joognaa ninkan allahumma salli ala maxamed caruuska maanta aynu gabadha aynu halkan ugu meherinay waa yacnihii ragga ugu sharafta badan ama muddadii aanu jarmalka joognay buuggoogu ugu cadcad yahay oo aanan ku hanweynahay mas-uuliyadda maanta uu qaaday sidii dhaqanku ahaa iyo caadaduba ay ahayd inuu aan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol inuu ka soo bixi doono idamka ilaahay ducaduna waa shay muhiima isagana waxaanu leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo kartideeda iyo dabeecaddeeda iyo aqoonteedaba runtii waa wiil aan ku tuhmayno waxaan ku soo gabagabaynayaa uun ducadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam baaraka allaahu lak wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma bilkhayr biidni illaah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحان ليهي عروسكي عروسدا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وهانتي قورك نبينا عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي إنو يهي دين تبركيدا نبي عليه الصلاة والسلام haddii midkiin ilaahay uu ku arsaaqo zawjad saalixad ah ilaahay wuxuu ku kaalmeeyey qofkaas uu dhammaystiray diinta barkeeda barka soo haray ilaahay ugu baqoyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam guurka waa deganaasho waa naxariis iyo mawaddo marka guurkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala noo xalaaleeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala guurkan wuu noo xalaaleeyey zinada iyo faaxishadan ilaahay wuu naga xarimay in marka waxaa loo baahan yahay gurigaas maanta la dhisay in la ilaaliyo labada qof walba mas'uuliyadiisa uu ka soo baxo waajibkiisa uu ka soo baxo qof walba qof kale xaqiisa ilaahay ugu baqo taasaan kula dardaarmaya maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala inta badan quraanka markuu ka sheekeynayo arrimaha guurka iyo arrimaha furiinka alla ka cabsiga ilaahay in badan soo celceliya marka in gurigoodii ilaahay ay ugu baqaan ayna ku dhaqaan sabar iyo jacayl ayaan kula dardaarmayaa ilaahayna waxaan ugu baryayaa in khayrka adduunyo khayrka aakhiro u furo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku arsaaqo awlaad saalixiin ah ilaahay inuu ka dhigo gurigooda guri barakaysan oo guryaha muslimiinta ah baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay anoo wakiilka ah adeerkay Cabdilaahi Xamdule insha Allah daba waxaan dhaqan u leenahay dhaqan wanaagsan ayaynu sameynay wax guur wanaagsan ayaynu sameynay gurigeena waa dhisnay dhamaanteed insha Allah waxaan rajaynayaa anigana hambalyo gurigii lagu waaraa noqdo gurigii lagu wax walba ha noqdo ilaahay khayr ha ka dhigo duco wanaagsan insha Allah yaadna waa kula daarmayaa nin dhalinyaro guri dhisaya tahay gurigaaga iyo reerkaaga waa talo wanaagsan إن شاء الله بإذن الله كريم وأنا أقول رجعني يا رجال السلام عليكم ورحمة الله محمد وأنا كوهم مليانة يا أدقي فوسية بقى nin saaxiibkeena waa lahayd maanta sidii baan noqotay waxa weeye wax lagu dar marka insha Allah hadii la yiraahdo taana way isaga sii dhawaanayna insha Allah de waxaan idin rajaynayaa inaan noqotaan qoys if iyo aakhiraba guulaysta insha Allah hadii la yiraahdo adigana de waan ku kalsoonay mas'uuliyadda adeeg kartidaada ilaahayna ha idin la garab galo insha Allah hadii la yiraahdo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum saaxiibkii maxamed cismaan waxaan leeyahay saaxiib maanta garabkaygaan ka hadiyay
wax badan anu waan sugay maalintan oo kale maalinta ay noqonayso ee waxa soo dad ay ku sugayaan maalintaadii bay ku noqotay ma sha Allah waxaan ku leeyahay reerkiis ku nastay isku nagaaday Ilaahay kaaga dhigo ragna dulqaadkiisa waxa lagu ogyahay ninka reerkiisa oo dulqaata nin walba gurigiisa macaab ku jooga gurigaaga ninkii ilaashan lahaa ayaan ku rajaynayaa insha Allah billahi kariim hambal ya saaxib Ilaahay reerkiis ku nastaa kaaga dhiga saaxib السلام عليكم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل دماتي وين ولا السلام يا مشهد كسوق كشيء حفلة مهركا محمد آدم يوسف يو معه فوزية عبد الله الحمد لله محمد آدم عثمان مهركيسة يو فوزية عبد الله الحمد لله أروس كودو الحمد لله ناي إلهي هاي دقيقة كوي ويلي عانو قبري عانو كوي لهي بش بروقان نقضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير أو بالخير halkan waxaan hambalyo kal iyo laab aan uga diranaa walaalkeen mudane maxamed aadan cismaan iyo walaasheen foosiye cabdilaahi xandulle oo aanu maanta goobjoog u nahay meherkooda waxaanu leenahay oo ugu ducaynaynaa ducadii rasuulka barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fil khayr aw bil khayr khayrkii laguna see lagu nagaado wada jireen nabad gala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan ugu maadnaqayaa ducaynayna walaalkeen maxamed aadan cismaan iyo marwadiisa qaaliga foosiye xandulle waxaana leenahay ducadii rasuulka barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynahuma fil khayr bil khayr waxaan leenahay gurigii laguna see lagu nagaado Ilaahay ka dhigo wada noolaada sharaf ku noolaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi محفل